واتيا من ثلاث سنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب ولي ثلاث سنين واتيا يا ولد أول شيء قعدت في شيء إلى البوريشنتي سير رسمي أنا قالوا البوريشيان سألنا إنه خميس الشغل ما وراه وأنا الورشة ولا الوراه وحنا صرنا قاعدين اليوم هاكل على حوالي وقتين أنت واحد نقطتين أنا الورشة اللي مش هو رجعنا هنا بلدي أننا قالوا هنا ما تروح خميس إلى الأستاذ سعد السلمان مركي أنت عيتي وين من أسمع الكلام بلدي أننا ما ترى وحنا نروح في إلى الورشة اللفتي اللي مكتوب وين نقولنا وين نقولها لفتي سايكان وغلط وين واحد يقول لي إنه ما ترى أنا نذكر الورشة اللي نقولها ورشة شرطة بالنهار هاو حين نلقطين المرتفعين الريحي الورشة تينا يمكن أن يشوفوا يكتبوا طلابة أي تنوروا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تتعرف وتحسب ما في بشيء لو ذكرت الأحلام هذا ما تتوجد وتوجد بدوني والشارع راح يسوقوني من inaynu dhammaystirano wareejintii inoo bilaabantay oo maanta oo bishii tahay 13 bishii labaad 2003 ay inoo soo gabagabowdo iyadoo maantii horreysay inoo bilaabantayna ay ahayd labada kun iyo saddex ayay sidoo kale maanta waxaa iyaduna inoo diyaara oo miiska inoo saaran fadhiyadii iyo kulamadii golaha deegaanku yeeshay intii uu samaysnaa hadal qoraaladoodii oo iyagana aynu rabno isla fadhigeenna marka dambe inaynu ku wada akhrisanno oo daabacan oo ku wada saarano markaynu isla hubino inay sidii aa u dhigteen ay yihiin iyaguna waa inoo diyaar waayahay waxaan idiin sheegay inay socoto wareejintii iyo tirintii aan ka farxano sidoo kale xilkii horta waxawaanu wareejinay oo awooddii maamul ee aanu haynay iyo saxaafiyadayadii laga soo bilaabo maalintaas may shaqaynay intii saxaaxayadu shaqaynayay ayaan insha allahu isku dayaynaa maanta iyo wixii ka horreeyay intaanaan wareejin inaanu soo bandhigno oo hortiina sidaa guddoomiyaha aynu ku balansanayn inaanu waqti hore isaga ku wareejino isaguna dib idinku soo bandhigo sida wax u wareegeen waxaa isku soo beegantay hal mar maca guddoomiyihii inaanu maragidi ka gelino annagu haddaan xilkan wareejinaynaa u socotaa golaha deegaanka iyo ma aha guddoomiye kala deegaan ayaa fadhiya oo annagu aanu xilkan u wareejinayno idinkuna waxaan ku faraxsanahay inaan goobta aanu guddoomiyaha ugu wareejinayno goobjoog ka hata intaa marka laga bilaabo waxaynu wada filaynaa الوريجين سيدي هانشتي أو قاب كيدي أو قرال كيدي وتفترين هل كان مرك أي مريسو
waxaan weliba doonayaa inaan carabka ku adkeeyo sidii tafaasiisha looga bixinayay qaabka xilwareejintu u dhacayso inaan dee u ekaysiiyo halkana laga ballamay stress baa la saaray xilwareejinta iyo qaabka ay ahaanayso qodobaa laga hadlay qodobaan laga hadlin anigu markaa waxaan leehay horta aan doonayaa dhammaantiinba inaan idin ogeysiiyo xilkan maanta aan wareejinayo ee la rabo inaan waafajiyo sidii ay ahaan jirtay horta 2 bilood iyo badh baan idin sheegay inaan anigu mas-uuliyadda meeshan dadka ay saaran tahay horjeego u ahaa cid alle iyo cid idu wareejisay qaabkaa wax iga doonaysaan inaan maanta golaha ku wareejiyey way fadhiyaan mudanayaashii hawshaas ugu dambeeyey aan kala wareegay cid alle horta iyo cid igu wareejisay qaabkan loo rabo ama aan anigu iminka u dhigayo may jiro dadaal aan sameeyey ayaan ku soo ururiyey information fara badan iyo macluumaad fara badan xogtii iyo sirtii xafiis ee ay ahayd inaan wareejiyo kama aan wada helin halkan kumana wada hayo taas waxay idiin caddaynaysaa horta xil wareejin xataa markii aan xoghayaha diinka 3 sanadood ka hor la ii magacaabay xil wareejin rasmi ah oo la ii dhiibay la soo heli maayo aniga maanta waxaa la iga fadhiyaa sidii xil wareejin ahaan jirtay inaan sameeyo dadaal baan idin sheegayaa aniga keligii igu xidhan inuu yahay taas waa hadalka un baan ugu horreysiiyey haddaba xil wareejintii oo dhan ayaa 2 muddo iigu kala samaysan mid aniga xil igama saara oo igama saarta xil oo dee waxaana wareegaba garan maayo 2 muddo muddadii maayarkii hore iyo muddadii aan dusimaha anigu aan halkan ka ahaa labadaas horta igu kaldanay wixii aan ka xasuusto iyo wixii aan ka gaari karo maayarkii hore iyo xilkiisii iyo wixii uu ammaanada u hayay oo aanan saxeex aanan kula kala wareegin ee warqad yar un aanu kula kala wareegnay oo ah maantay caynkaa ahayd taariikhdu halkaa maraysay waxaan xilkii ku wareejiyey awhayaha dowladda hoose oo aan taragareeyey in tafaasiil fara badan intan iyo wax la kala tirsado loogo ii suura geli weydii oo aan aniguna hadalkii ku gaayey waa diintaa lagu dhiibayo warqadaas keliya sidii maalintii waa lahayn warqadaas in baa naloo dhiibi runtii anigaa warqadaas keliya la iibi anigu diyaar waxaan idina inaan waraaqo fara badan idin dhiibi qayb qaadanaya mas-uuliyiin iyo saraakiin ka tirsan maamulka dowladda hoose halkan ayay idinku dhan tahay oo qoraal ahaan aan idinku dhiibayaa warbixin kooban oo guddoomiyaha warqadaan maalintii hore u dhiibnay aanu hoosteeda ku qoray waxaanu kuu soo lifaaqaynaa warbixinta maamulka dowladda hoose oo iyaduna kooban oo dhowr beyj ah oo tafaasiilo iyo sida number 1 fahamsiinta iyo ku wareejinta maamulka dowladda hoose sida uu u dhisan yahay waa qoro waa laydin aqriyi doonaa shaqaalaha dowladda hoose iyo noocyadiisa waa laydin aqriyi doonaa oo intooda ka hadlaysaa shaqaale ku xidhan dowladda hoose waa laydin aqriyi doonaa xaaladda hantida baa loo geliyaa hantida ama raasamaalka dowladda hoose raasamaal ahaan wuxuu kala baxbaxayo dhaqaalaha ama maaliyadda dakhliga iyo ilaha uu ka soo baxo noocyada kharajyada dowladda hoose xaaladda dakhli iyo kharaj ee hadda socota waxaasi ku xafidsaami maayo waxaan uga baxayaa
dakhliga bilaha la soo dhaafay halkaa marka aan idiin caddeeyo oo idiin faahfaahiyo waxaan ku soo dhowaanaya ilaa iyo shilinkii u horreeyey ee dowladda hoose qabatay oo nidaam xisaabaadkiisa leh oo buug dowladda ka diiwaan gashan oo odhidka iyo cid waliba soo diiwaan dabagelkeedii iyo sidii wixii u soo hoydeen iyo waxa la qabtay iyo buugtii iyo dagooyinkoodii iyo waxay ku baxeen min awal yowm ilaa maanta waa wax la helaya wax la isku wareejinayo hadeer dabada laga gelayaan ma aha ee qaabkeeda ay lahayd iyo odhid naloo diro ilaa maanta ayuunba horta waxaas lagaga daba tegi karaa waana wax kaydsan oo xafiiska iyaga waaxda maaliyadda iyo xisaabaadka gacanta rikorkayga noogu jira laakiin tusaale fiican oo ku filan golaha deegaanka iyo guddoomiyahaba waxaan rabaa sanadkii u dambeysay ee 2002 loola jiray ilaa maanta inaanu dakhli iyo kharaj labadaba aanu ka shaqeyno oo koobkoobno oo aanan arfiye iyo biifiye toona idin horrigan aan idin odhanayno markay halkaa maraysay ilaa halkaa maraysay waxaana waanu haynay waxaana waanu luminay oo waanu ka shaqeynay muddadii maayarkii hore iyo muddadii anigu aan kusimaha ahaa labadaa xilli ayaanu sanadkii u dambeysay si aad fikrad iyo tusaale fiican baanu sanadkii u dambeysay idiin soo qoray waana wax halkaa laga dheehan karo waxa tafaasiishaas la socda dakhli maxaa soo hoyday muddada kharaj maxaa baxay muddada kharaj maxaa taagnaa dayn muddada maayarkii hore muddadan kusimaha iminka aan anigu gudoomiyaha ku wareejinayo maxaa taagan waxaa deynaha loo yaqaano tafaasiisha caynkaas oo ah tii loo baahnaa oo ah tii aan dareemayo inay golahan ka muuqato in wax badan la fahmo waxaan uga baxayaa oo farsamo ahaan ii qaabilsan oo anigu aan mas-uul ka ahay laakiin sharaxeeda iyo in yar inay idinka gaadhiciyaan jaamaca ku shireeyo aamino jaamac oo aan labadaba soo diyaariyey iyagaana u daynayaa sida ay warbixinta u kala samaysanayaan hadal badanna maaha intaas kadib waan uga baxayaa waxaan idin xusuusinayaa oo aan hadalkayga ku tegi maanta waxaynu sawir u ahaanayna inaynu xilkan haddii ilaa galabtaynala tegayso ila waynu soo diyaargaroonin aynu u samirno waa aragtaan anigu sawirkii maantii hore ilwareejinta aan bilaabay laynaga qaadayey ayaa inoo socda oo inala soconaya oo waxaynu tegaynaa dee waxbaynu kala tisanayna dokumenti baynu hor iyadoo aanu isu diibayno la sawiraya alaabo iyo qalab iyadoo aanu isku wareejinayna la sawiraya ya sida oo kale waxa aan maanta wareejinayo sida qalab oo kale qaar baana ka warhay maanta meel alla meela yaallaan waan la ii sheegin laakiin dee golahiinan ay fadhiyaan ragga sheegaya ama haya ama halka uu ku yaalo waxna dee waan ogahayo xaruntaydana yaalaan markaa taana waa idin xasuusinayaa ama halkan iyo shirkan oo keliya maaha waxaanu tegaynaa goobaha waxa aan wareejinayaa yaallaan waxaan jecelahay intaa inaydin inoogu sii tala gashaan dee baabuurta 2-3 baabuur oo yaryar ama 2 yaaynu raacraacno waxaan uga baxayaa qoladan maaliyadda iyo xisaabaadka si ay idinku iftiimiyaan iyaga oo aan ka codsanayo inay kaleergareeyaan oo caddeeyaan war maayarkii yaasiin miran markii uu halka joogay 15 bishii 11 maxaa dakhli soo galay ilaa 2002 maxaase kharaj ka baxay muxuu inagaga tegey oo inaga bishii 11 iyo tii 12 dad kharajkeennii galay oo aynu xisaab xisbeenaynu ku xidhan
maxaa inaga aanu kharaj karaynay oo inaga baxay waan maayarku inala ogeyn maxaan inala ogeyn oo dakhli ah oo ina soo galay maxaynu ku wareejinaynaa guddoomiyaha oo markaynu inagu kii maayarkii hore oo dhan bixinay inagu kuwaan isticmaalayna wax ka bixinay wixii inagu aanu kharjiyaad galnay oo weli inoo yaalla ilaa meaynu marino maynu hayne maxaa jira idinkoo sidaa ugu kalaagaraynaya aniguna ka mid noqonay dadkayda dhegeysanaya وين تسوي إن شاء الله؟ يجب أن يكون ولا قد فلان وحتى يعني معرض الصغير حقيقة اللوج رسمي وحنا واحد الموحد ما شغل هو هيه سما وفقط في سنة عهد معي كمان صدق سنوات بكاء طبيعي صدق ناس wixii aan anagu meesha ku haynay isaga naftiisa wuxuu haya ahaa wax bari ah uu ka noqonaya ma ay jirto waana ka ogaan maanta guddoomiyaha cusub isagoo haya berrito inuu yidhaahdo cahdigii maayarkii maaha waa la cahdi weyn uu kula jiray taas waa taa waxyaabaha qalabka ah in lasoo fududeeya u dalka wanaagsan waxooga kala lugu ماذا يجب مساسي يريد باشا وحقها ورمانتي أنا أقول حكتي ربط الطائف إلى ما تنحي حسابات يزول الباقية والفرق the very beginning إلا صوت بابور November 5 ديو واحد لك يجتي وحاصي حاين هذي بان هو الدين وحاسي حايا هذي سلاح حين مساسي حين انت كده بيزوح نصوب عيوان عارف انه حاسي يساسي مقطعي هذي وحتاقيه ان انت سير البني يبقى الوقت حساب نسيسيتي مثل اللغة باهية يقوم بالطبيعة وانتها لكن لبع أهلي ولا كلي وأنا كلام حين لكم وحي بس يلي الحقيقة ما الله أيوة الحقيقة أنا بروح بروح أساس بس سير وحي كلام هذا يقول كنا نقول يا وأنت بيها أنت بيه هنا وأستور كنا السلام عليكم كل يوم مرحبا كفلسف قضايا نجيب وهوي طبعا مركز علي ما ضل وصل وصل قولوا حق وحقول لي يسوي هدي من الجيش لو في سؤالات يجي هذي عنتما يا الله قاطه هذي عنتما ودنا ذيك رأيين عنتما إذا ويا هذا هو فريق المواجب وين بوصل صار أنا عصر بيا يبص وحنت يا كمان وين هذا ما أهلي لما كان يشراني أهل والبحوك يا الله كنا بحوك يا بس يا عم وأنت عندي هاي انت حوصل يعني لو ده مرحله لو دي لو بيكرو لو سي وحاول لعبت على جبهتها على الحديقه لعب على وهي هندي وبتاع وهي هندي على هو بتاع وسرقوا ها هو يجي يقول لي انا كمان لا مش لا ويجي كبلاو حق هنتلا أما لا حق كاشينهان ما أنت أما بكرة كسر قاعد بقولك تاني بيك واحد بس إنه إلا قبل وكودي فيرمول كان كودي فيرمول أي كسر فيسي أنت كان تبغى شو أي كنت بالمرة كسحيرة مرة عشان كنت في أنا قاعد وتحسب الفيول ولودوكها يا أحسن كل فيول ولي مثلا بلابو لعكتها تالي كاش إنهان هاي سنة مش فيول ولي كولي كاش إنهان يعني وصل أها أكثر مليون 0.3 0.1 هي أكثر مليون أفر صدق هكذا شن أبر حل بكاشنهان شن أبر حل أنت يا كاشنهان أسلام
اسأل أسأل اسأل سؤال شيء مش اسأله وقرناه سؤال شيء وانا سؤال سؤال لا شنو لا بلو برحساب اوكي وتكاش كأنها سنين تصوحها هذا أنا كل يوم نقول حوار سيدا ليدي وصوديار حلوة جنتا وحي هاي أنا حلوة جنتا كي يدول صدق لا تقول الحين تودي بالك صودر اللهم صل على محمد ما أنت ياسين من كتري أما سكوبي ستو كيمشي أكتوبر سنة عقدت عشرة سنة بدون خش قبل سرعته ما حسابت حكاية كسوق عطو كاش إنها بروح أها عتي بالانس بعيد على ما الوحي كاتب ما أنت هتكلم ياسين قبل حكاية واتي ما تكون في الوسومة ما نسي هاي كويس دوكي أكتوبر لو حنا كاش أنا بحسني كان هذا كوير نقطة سيدي أو سنتين أنا نسكت كسر ديار واحد ولا سنتين شن مليان سديد بقول طبعا يصدق سديد هل سديد أوكي ها سديد هل سديد كويس دوكي بش أكتوبر هاي بين تنتاجني كتبي ما يكاسي مثلا يجي شباب وحيد لحية 8 مليون بين الجليس كيالي شلال وكل شلال يو فرشيو نجدي متقالها يضيعتك سلح داخل يرد مباشرة هاي كوا ستفاتيش ودار يسين دول يقرن ما نخري يجيب يسين دول وحيد لحية 8 مليون تضرب بقول 701 عشان waxay deynta maalinta aan ugu taagay intaasna waxay hayd taashinaan ku weeyaan taasi waa marxaladda hore ee qoyska soo bartay ku xiran xisaab saddexda bilood ee aan soo dhaafnay November, December iyo January dakhliga ma soo galay isku duuban soo bibiligi ku kor oo bisiin doono lacag January ha January 03 waxay tahay 117 milyan ما ذيك القرآن إذا القرآن ما يصير دونا دولة توصل بقى شنو سوكوا بتوصل على الموضوع ما تدبر يتمنى ليه بقول إيه أحطن 140.991 وحوي حال تدبر ليه الله يسامحه معها 140 حكت سجال حال خرج كودي ما كان يسوي وحوي حال صدق اللهم صل على أبد استقالت الدواء سمعوا كاس كم كاتل كل قولي بالانس كأني الشيء أفرت مليانة أفرت ذو ثيرو أنت سبخاش كسي فرق كرنس يقول كلا سكر هلاك وكي بين تتهاجم واحد تدين اختلاس وليال بدن iyo hawlo badan iyo maqsiyo iyo waxyaabo noocaas jireen waxa ku yimid badan saytan loo yeedo fuud ilaahay qala ma kidi dabada xaweyne ilaas wuu badnaayeen saddexda loo kaasho inta khamska taagan inta faasilaysan iyo bidkii buu qorayahay totalkiisa ayaa la sheegay deynta maantana ku leeyahay kowdii noo kulaha qaabka toddoba wax shaqada ay hadana laga bilaabo kowdii bishii labaad deynta taagan boqolkiiba شن سديد أكاد شن سديد شن سديد أكاد 040 صدق سيرو صدق سيرو
يا بعدين انت اسوي كنت هاي تفاصيل شيء بدك كده يروح حاسس كل بعد المواعيد هذا هبل الى وقت بلغه يا على اسمها هبل dowladda hoose wuxuu kala qaybsan yahay shaqaale joogto ah iyo shaqaale aan joogto ahayn shaqaalaha joogtadii wuxuu ka kooban yahay 48 qof haddaan midnidii ku akriyo اوكي شغالات تمبرير ولا واسطة قص صدق فتسكت تمبرير ولا واسطة شنقف أو كتكسن حلوة جوبك وأنا هكذا مشاركة كشيء وأمر بالزاغلين هي شغالها سيد التسين كم شهر عن وانت اللي يشعر شغالها ساعة يكون تكاقف أيام بشي والبا بيرهم خلاصهم هيا مشاهد يلا شو قول؟ شو أقول؟ سنتين تمرين سنين يا فتى لو شفته إنت واحد كم واحدة فيها أو إلى حد بالناس يشغلوا اللي يمام تصنعوا ويصنعوا ويلا تنقطع وما ممكن يمكن أي جزء تشوف أنا يجين صار القاعدة أنا كسوة هل كان أنا واحد اتبرر كذا كلاه برر يا ملاك واحد الرياح هذا كله هو التكنولوجيا عقابه أنت سوق كومية يقيمها فقال لك سكر الحياة وياه الوريتشة أنتظر نقولتها يو وإلي دمان قلب الدولة وهوسة كم قعابتها أما هيدها نسوا كشو أما يدها قعبتها أيها الكنيس صحن نقولتلو وهيك قوانتها أفريقيا لواستقلوا هدي أن تسالي السيو يديو كوكو يدي أخريو نمبر 1 وحلوتها وين الدولة وهوسة الدقمة العقاب اللي يقان أركان الوصف إنه جدار كاسكويكا أفر بقار أو كالتيدا لبنا قلبي تشيدو لبنا بلي تشيدو وتروح دعارة يقول ير أو كو أجنبا أو لو كتر كلي إذا ليو المسار عدين يا عدين واحد قعدت إذا هتلا كتيرة يوحد كتير وكتيرة الله هيستو يوحنا الحريني أما أصلا الحريني أما دون الحريني والله إذا وقناع شيء يسوي كذا نقول جاء مثلا ترد عاد لبض البخاري السوء قبل شيء وأنا كان عندي كويس كذا إنه كتابنا وحاول دمر كذا وقول لك ديت وإلى علي بحال بسوق كذا أنا كنا بشي بقى لبض السيء كذا إن أنت بودني كذا بدي تسوي لبض السيء عندي لو سريبة دهيلك يخضارها يسدد قلوه يرجع ودينا عبريك كريانا بعدها قوي ومدنه قوي وانا الله تعطى ورقة شغالها ايوي اكويا لا بردها ما كويا لا سريبة دحورها قاعد كده وكباندا وأفر دوني كقوبان وكالتينا دولة هو صالحي إلى بستة قاعد تدرك مشي
أكيد كده سيرت فاهم قولي هالك أول ولا لا كيف بدك تشوف بس برنامج البري يدور ولا كان بتوصل وآخر شيء إسلام تاس يدل كذا عيسى قعدت أنا وقلت له أفر بري أفر كذا أفر قاعد أسمع لو كنت أقول لك جمعية دا أسأل أنا إيش بيجوا يقولني حرمت وين يقدر نرفض الله حكي عليه ملك قتلو والله يقول ملك قتلو فهذا عندهم كم ما هو كلام على بلا أنا وين يقدر يقول إيش كشتك بورس كل سنة guriga weyn ee shaqaalaha degmada loo sameeyey ee ku yaalla bardaha gacan kuma jiro gacantayda kuma jiro saddexda santar ee loo kala yaqaano santarka daalo iyo ka October iyo ka kulmiye labaa gacanta loogu jira ka October loogu jira kaa daalo booliiskaan ku wareejinay waa ku socotaan kaa kalena injii oo dumara wax ka sameeyey iyo red crosstii waa lagu shaqeeya maya marka islaandi waxaa gacanta inoogu jiro kama karano waxaan jeclahay oo keliya waa guushiisii macnaha aniga waxa weeye xafiiska abaabulka hore loogu yaqiinay darista u yaala isaga gacanta looguma jiro beerta nuura iyo guriga yada ku dhex yaalaana nooguma jiro nin baa wada haysta oo waa daka cadde oo waa taqaana beer yar oo nersariga oo loogu talagalay in dadweynaha la soo sida dhirta doo atida ku agtaala taasina gacanta looguma jiro buule ninka la yaro jaamac maxamed cali aan ku ogaa garoonka kubadda cagta gacanta loogu jiro guriga guddoomiyaha degmada Ceelgaabo ee shacabka ku yaala gacanta looguma jiro waa guriga talaal ku jira ee weyn macabeertiisu guriga guddoomiyaha degmadu leeyahay hore u ahaa gurihii hore ingiriiska ahaa guriga martida ee shacabka ku yaala ee diisiga loo yaqiinay ee district commissionerka ahaa ee gobolka ku dhow ee hadda duusan isna waa kaas oo cidina kuma jirto waana duusan yahay xafiiska madbacadda qaranka waa duusan tahay waa taayna ka soo jeeda xabaraabad barkeeda xafiiskii xisaabiyaha gobolka ee hore isna waa kan oo gacanta looguma jiro waxaa ku jirtaa ina faaraxansay guriga ka saareeyo xafiiska sigaarka iyo taraqa gacanta looguma jiro xafiiska beeyada ee controolka galbeed ku yaala gacanta looguma jiro xarunta ADC-da ee ka jiraago wataa imaka ciidanku degan yahay ciidamagama inooga diidna kanakaa ku wareejina ciidanka meelo waayo guriga duka magaalada iyo xarunta dowladda hoose ku dhex yaala gacanta noogu jiraayo oo gurigan maalmihii horena xafiis ka dhigana intaan haysan guriga daabaqaada ee cusub
أنت على كارك تقول هذا كاس لقى يصير مطابقات ولا يصير أو قصة ووليان سيدي دور يصير دوري كاتلا وبعد يصير يمشي وهدي إلى مقدم الأخوان مطابقات لا مقدم الأخوان هو وحشة ظلم وكالتان وأنا والله قود بالي وأنا قود الحالة وأنا ما أملك الدقمة لا كتنية هدي أنا ورقو قلبك هدي يصير الدول دوسة يلا أما هي هسيسو أما أبغى وحب أنتي أركتي إيو شيء والبوان فترة يفهمه ما بيعيش عليه شيء تاو حتى على المركع دياركتي يسوق الجودين ميرو بيتر وحنا خرجونا لو وحي واقع وحي نالنا كما كنا نشوف ماشي كما كاين روش المدوس هذا واضح اوكي أكيد يبن قال لها هذا waxaa wada ahaa xilliga waa la maqlayaa meelaha loo gaaro su-aalaha darteedu kaa weydiin lahayna waa jirtaan laakiin mawaadiicdu iyay aada isaga keen wada dhexgeli saaka anigu wax la odhan lahaa intan xisaabaadka ah si wanaagsan intaan la saxeexin oo aan guddoomiyo degmo saxeexin aynu si wanaagsan uga baaraandeg iyada oo ah ruuxa kuulay ee meesha طلبات كذا كل واحد وياه اللي يقول ما يعمل صاحب لا تصدق والله ما يوجد عند الدنيا عند السؤال اليوم كذا وعن ذي شيء إن عند الإنسان يقصر سؤالها أنت أبدونها هي أبانو وعن ذي شيء وحا أنا يجمع يا أمين أنا حاضرين إنه إن لو هذا الكيلومتر ده ولبا intaas oo kursi intaas oo miis intaas oo shilin intaas oo deyna sidaa idin wada macaafina haddaba anigu waxaan leeyahay arrinta horta xilka annaguna dhibayaa oo maanta nahaya nin waliba maanta xil laga wareejinayo siduu ka yeelayaa isagay jirta aniga waxaan ihogaaminaya oo weliba hawsha iisoo fududaynaya oo odhanaya taa adeer sidaa kama rabo كان سلاس كربا وكل الدنيا ما كرسي غفري أو مرعى وأنا ما أقولي ولا جل ولي مرة أبو حقنا يقومله ولا حد يقام حقنا كستها إنه يقام أنا مرة أنا ورب لا يا أبو أقولي شيء صحيح مرة أبو وحبل تقولي شيء ماليو بوجو يوم مرة أبوك إسماعيل حاكمور باو حكوا إنه صحيح أنت ما يحس قابك أنا مرة يونا يسقى waan u jigelinaya oo oranaya adeero inta duuduub baan kaaga qaa adeero intaana ii tafaariiqay adeero inta kaala soo adeero inta waan ku aaminaya marka waxa saamay horta ninka xilka la wareegaya ee ay dibaatada ku tahay arrintaas tilmaantan aan u baahnahay ilaa la helo waxaan sheegayo sidoo kale yaa hay naga khaldamay intii maroo dhinaan wax loo aan ku weydiinay iyo saxeexan ka tago midna mid sharciga ay dhigmaan isaga idin gudoomiyaa tabtaasiishiis iyo wixiis isaga kulisi qodobka la rabaa inaan ka jawaabo oo ah meeshan horta wax la yidhaahdo ifin iyo caddayn waa wax aan u fadhinaayo nina diidinayo ifinina way jirtaa marka aanu kala laba waqti u kala qaado xilligii maayarkii hore anigu waxaan leeyahay mudane ha ka gubanaya maayarkii hore muddo aad soo qaata u jirtaa ani maanta xilkii xog hayanimo adigana waan ku ahaa ismaaciil xaakimuurna waan noqonaya insha allah inta ilaahay karto ma wareejinayo xilkii xog hayanimo maanta waxaan wareejinaya xilkii aad haysay mid lamida oo aan hayay oo kumeelgaar ahaan u hayay baan gudoomiyihii ilaha ku wareejinaya waxaan doonayaa inaan caddeeyo hadda halkan aamino waxay tahay oo kale muddadii yaasiin naga tegey kaashka intaan leeg baa yaalay oo waxyaabahan milicsanaya ayaan doonayaa inaan idin arkeeyo oo waxaan horta iyadoo oo dhig baan ba idiin sheegaya baanu diyaar u nahay oo awalkii idiin sheegay oo ka fursan mayso haddii su-aalaha fara badan laga qabanayo cidda su-aalaha qaar baan nagu jawaabi ka darto inuu su-aalo yaasiin iyo nin kastoo lamid jidkii loo leeyahay aanu kaga jawaabayna iyo sharciyan dhacay tahay waxa danta ugu khasabta
حرحية بوها ويسألوا فيها وحن كله وحن ينزل كان المات وليتنا يفرع بعض الضغط وقت لما وقفت وبينه حرحية من الجالي تكلموا وقال كانوا ما مشجع له لا وقت السنة تن نظام حسب الدولة والملك لا تهدي الواحد يقول اسمه أنا أقول لا سبحان الله حل كل الأولى هذا مثلا كذا رسول الله هذا هو الناس كتبوا لنا تصور هذا سؤال ولا تاج ليش أنا واحد مسؤول الدم المسؤول إلهي بقى قدري آخر المسؤول إلهي بقى قدري مسؤوليتي دجمنا ما أنت النكهة إلهي غير نخر يصير هدي أن نقبل الأمور يجودين أن كنا نموي إلهي مسؤوليتي نولي بالمبر غيرها ومد إلهي ما يقول لك تجنا مبر غيرها وحلو ما يوحوي سلا وحصورة كلا سلا حاجة ونقطة كلا ونقطة كلا مدبر ما هو الذي بتسوي شغل السنة دوس إنه أي جالس واحد من البايس ما صار مرتين واحد من البايس لوقتي وحنورا وجعلنا وإذا أسلسوا مرتين وإذا أسلوا بيد الناس خاصة لأنه لك الولي شريعة وكنيئة إلى ركبه بعدين هو طيب تبقى يشوف بيرسي هذا هو اللي لقى ما يودي ما تجيس ذلك بيشتغل أنا وذلك يوم صادرتي وهذا الدوري يروح لقاتيان وهذا الدوري يروح حاجاتيان وهذا الدوري يروح لقى بس عن قاضي ما الدوري إنه مشغول صوت إلى ذيك لا حمل ذيك الرحلة اللي بدون هدي إنه يلو لك لو إنه بيس كانوا كذي بيس كانوا ما شو ما هذه يكون جيب واحد نور لأنه أنا لك تشوف نور ما دام نسيب في الباص وقلي إلو لك لو إنه به واحد على نفس كل هذا يبشروا واحد كاسر هي بشرا فصحيح مش هندرستان تجينا كقاعدين النظام في شرق العراق لما نوصل مرامي قاعد يجي بدونية النظام كأقوى النظام اللي بتصوت وتبقى بدونية يدين كذي مربنا حب هيوه قالك يقول أنت هالشرق جالس ما شفتوا قلها الديجان إنه مربنا كي ودوا ورئيس الله يشوف هناك بروح خلاص تسجيل وقتي هو حاضر أو قلها وأنا بوصل قلها الديجان إسماعيل واحد يقول ريتني بدومية هل تعود يجي بدومية واحد يعرف واحد كل جينا أنت تقول ريتيو إن دم شيء تقول ريتيو أنت كاس وأنا سحيا وأنا كحال مريها جاء سكروا بهذه سيدا أوكله إبراهيم إنه حلا وحدة بيكون تطبيق يعني اسمه غصنا وحسن وحلا وحلو عن بعض دارك يا إبراهيم خلق قبصنا يا رب هدي عن الله نقول جنس كأو إبراهيم يقول أنا تي وحكم لها إبراهيم وفرياش عاد هاي سؤال كيف ترسي هنا ذي يسوي ما تمشي على جوبي وأنا لا حد ذا يسوي ذي يلو عرق تريد ياسين من أو أنا ذي هنا ذي لو سلا صام وقف بعيد دوكمنت قاعد يشيك قال ولا هو حتى قال أنا وريجي يبتز ويري حدو لا يقانني كاسيان تكتب بدي هاي ويدي وأنا تبغى تستطيع ما فيها ولا ما يفي ولا سيمبل حلا وقول إسماعيل بيو كحشاوي أي نقيت نسلا أنا طبعا ولا يرجع أنا طبعا نقيت نسلا وحلا أنا أقول ما هرجع وحن بجعل هنا شانس بسيو أي اللي كريسانو ورسي أنا الصومالي يجيبوا كانتروش ونوع عادي إلى حد كالسوري بقى يقولون وطول تصميم تروح بينهم وطول تصميم ده هو بحرين بينهم أنت هاسوبا مكارنا وقراءة أنا مرة بقولنا نبيرت بدل استفار فارو هرت هدي أي كسورة بيسور أنا ستة دقوا وسياق هذا وكل نوجس وشواب وإكران هذا يقالنا كامر هبنو هذا نعيد الجيل وأنا أقول لك يا فارو لكن إنك أنا بدورك وما أنتي هبلنا وما أنتي وحني جيدا
inaan xilkan idhibay haddii ibraahim xoog haya war anigu imka hadal xoog haye waxna ku wareejin maayo baan ihi mana ihi saacaddan aan xilkan wareejinayo waxaan ahay guddoomiye ninku sima ahaa oo xilkan meeshan haystay oo guddoomiyaha bay iga soo hagaagisa ee xoog hayeenimadaydi iyo in hadda xeebkaa la eego hadda la eego xeeb xoog haye hadda ka guddoomiyaha ninka yeeg hadda dhegeysi sifa alla sifadii la doono in loo soo dhigo diyaar baan taawo hadday xog hayanimadaydi hore ahayd iyo hadday kusimahanba tahay diyaar baan kuwa hadalkina iminka wuuba naga dowdow yahay waxaan guddoomiyaha hortiina ugu wareejinaya tafaasiisha jaamaca halkan waxaan ku akrino waxaan jecelahay wixii aa u baahataan yana hudda waxaa hantii ka kooban tahay moog iyo noolba waanu idiin sheegnay ilaa shilinka maanta meesha yahay warbixinteedii aaminaya jaacabaa diyaar idinla ah ilaa khaladka yaalla diyaar buu idin leeyahay sidoo kale inaan idintuso orientaasnoon halkaas wayba qorta sida kuwa halkaa rasaysaneen waa siday noogu jiraan hay-aduhu keeneenoo aanu idin ilaho jabnihi nagagala wareega diyaar baanu una iyo ruuxa uu ka hadlo waxaan xusuusinayaa saaxiibka oo kale ceelasha iyo waraha iyo berkadaha ayaa dhulka iyagay ku tirsan yihiin dhinac haddana waa hanti dhulka sida dhismaha oo kale ah oo dawladda hoose wax ka leedahay waxna kala ahaan jirtay horta beryahan dambe dib umaanu soo diiwaan gelin oo wax noogu jiraa gacanta ma ay jiraan marka laga reebo dee shantii ceele aan maalintidoodi idii sheegayay oo shantaba yufle dhaban jiidali goob durdur adu kuwii caynkaa ahaa oo berkado iyo ceelalba la maintaingareeyo xaaladda biyaha la hagaajiyo oo qalab yaallo dokumentiga qalabkii yaallay mashruucyadu waxay ahaayeen tuubooyinkii generatoradii wax walba waanu idinku wareejinaynaa iyo goob walba halkii ay joogto kuwaas baan xasuusinaya waxa aan jecelahay inaynu la kala wareegno dokumentiga mashaariicda grant heshiisyadoodii ahaa oo ay kuwa keer iyo kuwii c a a ugu horreeyeen aniga igan xog hayaha ahay iminka kuwii keer baan haya kuwii c a a waxaanu ka helaynaa xogta xafiiska oo waa aniga hayo oo kuwaan sheeganaya waxaan sidoo kale kuu wareejinaya ilaa iyo iminkadaa wixii anigu aan hayo ee xafiiska ugu imin heshiiska biyaha dawladda hoose horta mashaariicda dawladda hoose ee degmada ee horumarinta ka hirgaad ma diiwaan gashana idinkuna wareejinayno garana mayno meel alla imanaan ku doono haddaan xog haya ahaan shaqada waa la isla leeyahay oo cid la socday waa halkaa mashruucaasaa ka socda maamulka iyadu dhinac uu ka warhayey anigu kama aan warhayn waana cunug daaranay waxaa ka mid ah mashaariicda aan anigu dawladda iyadan hoose kuwa magacaabanay practical annaga noogu xigan xarun ahaan shaqo ahaan oo keliya oo iyaguna wada qabyo ah 4 mashruuc baan idiin sheegaya mashruuca dayactirka suuqa hilibka iyo khudaarta weli uu noo socdaa UNHCR baa maalgelisay na laguma soo wareejin heshiiskeedii iyo local NGO baa lala galay ka mida magaalada ururada wadaniga ay jooga oo lala galay heshiiskaa dawladda hoosena warqadda ogolaanshaha hore in la siiyo NGO-ga anagaa siinay weli waa qabyo oo laguma soo wareejin mashruucan suuqa hilibka sariibada loo wada waa guriga xoolaha lagu qaliyay magaalada ya heshiiskii waan ka waayay xafiiskii halkii aan tirsanayey waan ka waayay heshiiskii wax lagu heshiiyey iyo waxaan lagu heshiiyey iyo waxa responsibility iyagu yahay iyo waxaan ku jeegarayo hay-adda maanta ma hayo wuuna jiraa oo waxaan leeyahay guddoomiyihii hore ee degmada ayuu gacantiisa ugu jiraa si gaar xafiiskeedana waan ka waayay waa 2 waa 3 mashruuca biyo ballaarinta magaalada ceergaabo NGO lama sii dawladda iyadan hoose iyo UNICEF ayaa heshiiskaa wada galay oo wada saxeexay oo xataa inay wada maalgeliyaan aan filayaa inuu ku jiro heshiiska xanuuniga dukumenti hadda aan ku jira ayaa heshiiskaas wax kan sheegaya
iyo qalabka hantidan aanu hayno ee sabalaygii material ahaan ay u keentay UNICEF aan idinku hayna oo idinku wareejinay gudoomiye mashruuca samaynta jaangooyada naqshada magaalada waa sheefa ayaa iyana loo haystay meel hindisaha iyo soo jeedinta aniga ahaa gudoomiye ku-xigeenka ayaa xilligaas isna meeyarka active meeyaraha meel alla iyo meel ay igaga baxsatay oo igaga faramarsatay garamaayada ilaa haddaba wax heshiisa iyo waxaan maalin walba hadda horta intaan isku soo laalaabay leegiyo waa tii Kenya ka timid وكان وكيل دولة هو أنا مصمم فهالشيء كله هيدا علمي هيدا كيمياء يا حد يروح على المشروع عصري ما لنا ما يسترنا ما يجعله سيدي هذا نوقف على قاعدتي هالشيء يلو قلنا ولا هي يقول لي أنا معه يجب واحد يلاقي يحيى عن كه يبغى يقول الكيمياء إيو جيل القدومية عن قصص صارنا اللي قدومية أنا جهوش النسومري كان تيجي يلا كأني بلو رجمين halkan ayaa goobka ayagii hore iyo wax naqshada magaalada iyo heerka ay maanta marayso baaxadda magaalada oo aanay ku jirin waxan dambe ee maamul dowlad hoose ahaanba aanu ansixinay ayaana loo talagalay in loo sameeya oo dhulka dhulbaaqeynta dhulka reebiyugu maraya dhulka iskuulka loo maro wax waliba ka cagyihiin ma hayno ilaa hadda waxaan qabaa waxay u baahan yihiin mar labaad inaan saarkii ka codsanay maaha noo soo dhiga taasina waa ta dukumentiyadiina halkaan yaasinayoon waan sidii sheegay oo laga xiriirayo dukumentiga laftiisa ku xejin taas waa intaa ilaa ceel waxaan ka warranay ilaa berkad ka warranay ilaa alaabo ka warranay ilaa khaladkii lacag ka warranay annab ilaa rag uma barnayo weliba maanta arrintu aad kusaysaayo haddii ay noqon weyday sida aan anagu u rabno inaan u wadano waxaan garanayaa waxaan jecelahay in la tixgeliyo inay noqoto sida aan isla wada garano marka aanay noqon sida aad keligiin baa haddaad doontaan goladigiina iyo idinka oo dhan oo iskuba dhammaado sidaa ay ku doontaan anigoo halkaan marka diidayaba waxaan jecelahay wixii dambe su-aalo inaan cabaar u fadhiisto su-aalahaasina aanay noqon kuwo dee jihaysan oo meel jaakile ka imanaya dhammaanba golahu su-aalo guddoomiyey waan diyaar baan ahay waxaan waktigii baan ku xisaabtamay lafteeda tafaasiilka badan baan ka imanayaa waxaan diyaar inaan ku taabsiiyo adiga iyo kolahaba dee heshiisyada warqadaha koobiyada alaabada iyo bakhaarada wixii anaga gacanta noogu jira ya iyo January oo sanad kale anigu waxa qaba halka yaari jirin su'aasha weydiinaya yaan la sameyn sanadkii dhamaaday 2002 xisaab xidhkii sanad ama financial year yaa lagu xidhay mise January sanadkii hore ku jira waxa weeye waxa jira financial report aanu bilbil ku xidhanno oo sanad ku xidhanno oo saddex bilood ku xidhanno marka maxamuudow 2002 January ilaa December uu noo xidhan yahay January 2003 waxay noogu xidhan tahay 2003 ahaan waxaa dabalka loogu soo daray marka 2002 ilaa maanta dakhliga maanta yomana hada marka January February way dakhliga lagu sameeyay January sanadka goolin akhriya anigu sidaa tafaasiisha ayaanba kuugu dhigay ugu dambayn sanadkii 2 January baa ku jiraysa waxaan soo bandhignay waxaan tusaalaha wanaagsan waxaan idinku siinaya 2002gii inaan ilaa January ilaa December idin hortiina soo dhigno soo waxay oo dawlad ku soo gudbino oo January 2003 ilaa iyo hadeerna gaar idinku sheegno waa tusaale fiican oo aan idhi si aad ugu fahantaan sanadii hore isla ahaan jirtay isuma jiraan 2003 gan iyo 2000 halkan dakhliga isku jira badiya baa wixii farsamo ahaan iyo xisaabaad ahaan shuruucda xaleeyada waxaanu ku shaqaynaa
sharcigaas maamulka maaliyadda iyo xisaabaadka ee heerka haddii aanay waafaqsanayna waxaan leeyahay dee haddeerna yaana loo waafajinba ee jidkay leedahay hana laga qaado haddii ay waafaqsan tahayna annaga afkayo oo keliya lagu warmaysan maaye hay-adaha iyo cidda ku shaqada leh ha loo dalbado hana eegeen qodobka aan ku waafaqsanayn qodobka ku waafaqsanna ha eegeen taa mar hore waxaan idinku weyey warnimo yahow farsamo ahaan iyo hoos ahaan iyo daakili ahaan hay-adaha sharciga u leh sidii kii waxay hoosaadkii ay samaysanaysay ayaa managu ku joognaa wayna waafaqsan yihiin baa kamidoo mudankood xisaab iyo xil wareejina way leeyihin wixii laga fursanayo oo yani wax waa laga fursan waxna lagama fursan karo cid kastaba ha taabanaysa wixii aan laga fursanaynin dee waynu isla eegin ismeen wixii laga fursanayo waynu dhaafay anigu waxaan u arkaa in loo kala qaado wixii laga fursanayona in la dhaafo qoladii hore ha ahaado qola dambe ha ahaado wixii aan laga fursanaynin isagna maalintii hore ugu shuruutamay la isdhaafsan waanu ule haddii xasan ku cabanayo dee wax layma taabsan annaga waxaanu taabsamay haddaba yay noqonin inay dhiidhi sii dhiso ee korgoosina waaynu jiri oo wax aan tayo lahayn iyo isku riixriixeeda iyo cadaawadinteeda inaga dhaafo laakiin waxaad inoo soo dhacda oo aanu doonaynaa wixii hadday qola hore matalan xoogaa kaaga jirtay madmadowga intaad ka fursan karayso waad ka fursanaysa wixii aan kan laga fursanayna waa soo dhacay adigana intaadan bilood waaba loo fadhiya hadalkayga waxaan kaga baxaya in maskaxdu soo ururiso inaynu qaadano tallaabaqaadkii shaqada oo aynu waxaynu ka fursanayno la dhaafo wixii laga fursanayona aan laga fursanayna aada mataasuso arrintan saa dadka qaabka loo hadlaya ama loo doodayana horta xaquuqoonba xeer hoosaadkii lasoo sameeyey in dadka loo qaybiyo oo la akristo ajendaha laga hadlayana aan laga bixin okay habka qaab buu xogay soo waday warbixin buu waday wada soo diyaariyey warbixii xooga waxsin baa laga yaaba marka xisaabtan aynu leenahay hadda ma ka doonnaa oo ma ka hadalnaa ama waxaan qabaa inaan sideeda ugu qaadan karin hadda halkan oo kale 850 milyan oo deyna la taagan maaliya how sideeday u taagan tahay waa in siday ku baxday iyo malafkeedii la helaa okay dakhliga sidoo kale isagana siduu ku yimi iyo meeshu ka soo galay jaranjaradiisa waa in la helaa marka hadda ma aha mid aynu oran karno xisaabtaasaan dood ka qabaa waa in horta malafeedii iyo wixii ama cid loo saaraa oo kale ama si qaabaysan oo habaysan oo cilmiyeysan looga hadlaa oo looga dooda wixii kale ahaa arrimaha u dhiman xogayaha in lasoo arko in guddoomiyaha uu soo arko keligii isagu soo tursado wixii qalab iyo wixii haba oo kale in la soo wada arko ama xaggaa kaas laga hadlo ayaanu ka codsanaynaa kana rabnaa inuu noogu tiriyo u sheego un waxa aanu hayna su-aali kaaga timaado keliya sidaa waa su-aal bisas waxaan ka codsanaa xogayaha oo keliya ayaa wax tirinaya waxaasaan hayaa ka baxo waxadaysa dhamee waxaa ma hayo cid baa ka odhanaysa ka war asalaamu calaykum laakiin intan maanta geliga hore ka gudubno tan saare tan faylasha iyo waxaas dee oldaa jira oo haddii aan su-aal waxaynu qabno ka weydiinayna say inoogu cadaato laakiin ma qabo inaynu hadda laga qaad waktigeedna hayno haddii loo baahdana de waa wakti dambe laakiin inay inaga xayaysto xil wareejinta maaha haddii loo baahdo cadeeyo markaa cid loo saaka marka waxay lahayd aniga inaynu waxaynu qaabilo u qodobeyno
maraynu xisaabtii dhamayno marnaynu qalabkii galno marnaynu galno hantii iyo hantida guuraadka waxaana ila tahay aniga in xisaabta u baahan ee ka maarmay in loo soo hantida inaka amahaano amcisa meelka laga sheego hawshiina aniga fududeeno hadalka ma hadda mar wala xulaa inuu gelino su-aal markuu inuu hadal geliyo sida tanooyinka ay arrintu tahay waa weli laakiin sida ay caadadu ahaan jirtay marka tiradu iyaga ka soo dhamaa wixii warbixin ah ee tiraca ee alaaba ee xisaaba inaynu markaa inagu jaan u qaadno oo wixii su-aal laga qabo la su-aalo oo aynu inagu isweydiino ama xogayaa weydiino wixii markaa u baahda taabasho in cid loo xisaabo xisaabta mar la yidhaahdo dadka shaqaalaha maxay kala yihiin sidee bay yihiin mar la yidhaha xisaabta intaasi siday u baxday xawraaqeeda ku baxday sharciyada ku baxday wixii haddii u guuraayo waa kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaa sidii laynoogu sheegay inio dul badanoo wax dhaqantirsanaya baanu arki jiro waxii qaba ma lahaan jirin iyo wuxuun baa laysu dhibdhibi jiray waxna waa laysu raaci jiray keenu nila xoogaa bay ka yar duwan tahay marka oo xoogaa baa kusii yaala kala tirsigii marka anigu waxaan odhan lahaa sidaa odayga ninkaa odaygaa sheegay hala qaybiyo xisaabta ha laga qano shaqaalaha ha laga qano hantida maguuraaga ha laga qano qalabka xafiisyada yaalla ha laga qano marba in ha laga qano oo madaxaan u saaro ile sida kan duuduubka ah hataa haddaynu duuduubkaas kaga qaadano aynu tawakal cala loo hadhowta anu isweydiinana dhibaata ma jirto isku jijiidana maaha qodobka hadday guri kaga baxay oo kale xubnayaal badan la yidhaahdeen aniga laftayda sidii laisku qaado marka waxa weeye tooda saa u tashataan idinku taray inaan taa diyaar u ahayo markaa laakiin dee waxa loo kala horsadaa siday u kala qiimo badan yihiin bal ilaa iminka waxa aan noogu timaadeen anaga wax haddii dooneen isu gubteba warba waxaan nool iyo siday u kala qiimo badan waxa aan kasoo shaqeynayna 7 sannadood oo kale oo aanu gacmaha ku hayno bal sidaa u kala gudbisanaysa idinka xulashadiina laftiin xisaabta meesha la yidhaahdo halkay ku qoran tahay ha loogu horreeyo anigu mashaariicda ku horreeyaa bay leeyahay sidaa haddii aynu usoo bilowno xisaabtaa la iska sheegayna ha ugu dambayso kuntiina waa waynu raagtay oo dee muddo bilbilkeed 15 casho aynu marayno aniga waxay la tahay habxisaabeedka halkan aad noo akriday iminka in wixii kaa maqan aad soo dhamaystirato oo biilis ama wixii dee sharci macquula adiga isleeda kaa maqan inaad soo dhamaystirato annaguna markaas sidii aanu u geli lahayn aan dib u dhigano waqtiga xale waa qodob taasna seelitaaniga hantidaa ka hadlaysaan inu guraanka waxaa gacanta ku haysaan iyo waxaa haysaan iyo waxaa inan hayn way soo dhexigteen soo kala saara iyagoo qoran intaana ma hayno qoraan goonay halaade intaa haysaana qoraan goonay halaade taasina qodobka laa waa soo dhex dhiginaya soo kala caddeeya waxaydan ka qaadina sheegtaan wey soo kala caddeeya halkaas waxaan ka qaadina halkaasaan uga qaadina soomaaliya kadaa ka qaataan dadkay gashaan meel kale gashaan ya waa intii tireed ولا ما بيسوي waxaa yimid alaabta eedamusuuliya masra iyo xogayu taa waxaan gartayna ku tooqo hadday tahay mid xafiis iyo hadday tahay mid mashruuc waxa qalab loo yaalla ilaa irbad mid loo qadan guddaanaa soo tustaan farta kusaastaan soo tirsataa baan uqataa walaal loo soomaaliya guddiina waa magacaabi xasan ibraahim bulsho imaan maxamed ciise maxamuud cawad ducaali ibraahim axmed cabdulle maxamed axmed cali bile intaas waa soo tiriso wixii oo kaleena ogay hadday misbaarmeen yaallo biyo
qalab mishiin waa la xidhiidha wixii hanti dawladda hoose leedahay intaa in lagu soo weriyo taana saasaan aan ka gartay agreements iyo wixii aa gasheen waa cid la gasheen oo naga horreeyey adiga iyo yaasiin baanu ka codsanayna miska imaano oo runta baanu doondoonaa aanay jirin inaad noo soo fududaysaan ayaan codsanaynaa waa inoo yimaadaan oo miiska la keeno waanu kula wareegin cid allaala ciddii haysaa taana saasaan ka codsanayna example miiskan anuu fadhiyaa oo fadhiya waxay iyo shay soo cashanay gabdhayo joogta waxaadadis waa maqanta cid allaala ciddii haysa waxaanu codsanayna inayna wax dambe isweydiini wixii agreement haysaan oo dhan iyo wixii aa gasheen inay noo keentaan waa kala soo dhigtaan war labaa keen isu soo noqono ayna wax dambe isweydiin irbad hadday tahay aan helo aan isku codsanay waxaan kusoo koobaya arrinta biyaha wilaa imanka annaga war bixin keliteen halkan noo kenkeen bayaan qoraal oo laydinku wareejiyey ilaa minka namadsi maysan maynoo haddaynu iska maagayno dee waa qalada mas-uulamis sharcigii biyaha dawladda hoose loogu soo wareejiyey inaan meelo iyadoo qoraal ayaan u baana aan ka duuli waa daba keenta haddaanu jirin dee ma jiro inta aan ka ogahay haddaan iga dambeeyo warqad baa mar la soo qoray waxaa soo qoray wasiirka arrimaha wasiirka biyaha maalinta iyo biyaha wasiirka wuxuu yidhi ha maamulka degmadu ha hoos tageen oo biyaha helnow haddaa tahay ninka maanayaha ka ah meesha waxa uu ku maqan xaggiisa sidii anaga warqadii u hayno markaa aan ayaama u tegtegay conferencekina aan uga yeelanay isla la dhignay isla la garanay ba waxay hanti hayaan iyo qalab wixii ay hayeen bay soo wada hagaajeen si ay fayl ugu gurto degmada walagood hawshii iyagoo haya anaguna aaminsidii uga siiyey waxaa soo dhacay taar iska ka yimid isla wasiir qaarkaas waxaa ku qoraa anagoo warqadii hore ka raacaya waxaan warsanaya in biyuhu siday markii hore ahaayeen ay isku yihiin isla taarka anagoo hayna oo dad kale oo faris iyadana isoo geliyey oo uu isla wasiirku u saxeexan yahay oo iyana leh sidooda hore biyuhu ay dhexdooda ergaamo uga shaqeeyeen uga shaqeeyeen idinkuna wixii ilaalin ah iyo hababixin ah siin kartaan siiya laakiin adkeed marka hore waxaa maamulka oogay ay baabi'inayso waa ina farisoo kusoo waan filayaa in uu laga heli jiro halka arkiikiisa walaalahaasi intii kale ee anugu ka tegey wixii iga dambeeyey hadday wax ka yimaadeen information ka haya wax ka dambeeyey ma jira laakiin waxaan leeyahay saacadda aynu fadhino biyuhu waxay hoos yimaadaan maamulka dowladda hoose ee degmada haddadana wasaaradii daakilka kaasaynu ku weydiin karnaa dhinaca jiro agaasika fadhiyo iyo wasiirkaba waxaan ogogaalmayda ku siinayaa inay maamulka dowladda hoose hoos yimaadaan oo yaasiin ayaamihii uu ka tegayay xukumayay ya magaalada cagaaba waxay usoo mudaharaaday mudaharaad la hogaaminayo oo dowladda hoose doonayay oo yaasiin saxeexay in biyaha la kordhiyo u ogolaaday intuu la soo socodsiiyey kule sida ay saasaan udhigaya okay anigu aan arkay oo igu raaci maayo ayaaba jirtay oo nalagu soo mudaharaadsaxiixeerka anshaxa fadhiyada golaha oo ka kooban qodobka koowaad qofkii xilligii shirka ama fadhiga la bilaabay ama la ballamay dib uga dhaca kow fadhiga ugu horeeya waxaa la siinayaa digniin afar labo waa isla qodobkii marka labaad waxaa la siinayaa digniin horaad ah marka saddexaad waa isla qodobkii waxaa la siinaya wax gunno ah ma laha qodobka waxaa la ganaaxayaa 40,000 oo shilin
Soomaali Shillaan Soomaali Shillaan qodobka saddexaad qofka caadaystay inuu maqnaado labo ilaa intaa uu ganaaxa bixinayo kama qayb gelayo fadhiyada deegaanka ay dowladda hoose degmada Qaargaabo oo tiradoodu dhan tahay 22 xubnood ayaa 30 bishii koowaad sanadkan lagu qabtay qolka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Sanaag shirkan oo ujeedadiisu ahayd in lagu daariyo xubnaha golaha iyo laba in lagu magacaabo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaa shir gudoomiye ka ahaa gudoomiyaha gudoomiyaha gobolka Anis Xaaji Xasan waxaa kaloo goobjoog ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka oo dhaariyay golaha intaa kadib waxaa la gudogalay magacaabista oo u dhacday qaab doorasho gacantaaga jagada gudoomiyaha waxaa u tartamay 1 Ismaaciil Xaaji Nuur 2 Yaasiin Mire Maxamed 3 Xasan Ibraahim Bulshi waxayna natiijadii noqotay 1 in Ismaaciil Xaaji Nuur 12 cod ku guuleystay 2 Yaasiin Mire Maxamed 8 cod helay 3 Xasan Ibraahim 1 cod helay jagada ku-xigeenka gudoomiyaha waxaa ku loolamay ama isu sharaxay 1 Ibraahim Xuseen Mataan iyo Saalax Xaaji Xasan oo kala helay Saalax Xaaji Xasan 1 oo ku guuleystay 12 cod walaalaha soo Ibraahim Xuseen oo helay 12 cod saa ku guuleystay 12 cod halka uu Ibraahim helay 9 cod صاحبي تومبو حسب ما وش حسب تومبو هلا حسب ما كنت إبراهيم سجال إبراهيم أحمد سيما قدر shan gudoomiyaha golaha deegaanka jamhuuriyadda Somaliland ee gobolka Sanaag Ismaaciil Xaaji Nuur iyo xubnaha golaha deegaanka haba iyo ra'yigiisii oo halkaa aanu ka muuqan wax saxaaxa oo la saxaaxayaa ma jiro anigu imika haddaan lagu soo qorin go-aankii maxkamadda gudoomiyaha gobolka uu ka gaadhay xubin fadhida golaha ma saxaaxay shan iyo tobankii bishii labaad 2003 waxaa halkaa hortiina idinka muuqdaa waa shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka Sanaag iyadoo aan qof idinku sheegi doono shaqaalaha oo ka arki doontaan cajalada marka hore waxaan ku bilaabanaa Yaasiin Yuusuf Geele iyo Cabdi Cilmi Jaamac محمد جامع عبدي وانا محمد اسماعيل احمد يوسف محمد حرز علمي حال حسين عبدي قري حاج فارح محمود جامع فران حسن محمود دريك محمد دلغ العبدي محمود صالح ورسمه صالح يوسف سبله بيسر هو محمد فارح شمس حسين فارح محمد يوسف عاشي اسماعيل ابراهيم سليمان عاشور محمود بعد عبد الله موسى سلام فارح علي عبد سليمان عندي سلام فارح علي اسماعيل عيسى محمد محمد جامع شرع أحمد محمد أحمد iyadoo maanta taariikhdu ay tahay 15 bishii labaad 2003 waa shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka Sanaag iyadoo shaqaalaha halka uga arkayseen sawirka cajalada waa shaqaalihii oo dhan haddana waxaan waraysi la yeelanaynaa inaynu shaqada toosino oo hagaajino oo sidii ay ahayd inta fududaysa aniguna waa la fududaynaya oo waxaan ku qiimeynaya shaqaaluhu shaqadiisa iyo sida uu hawsha u qabtay ninka shaqeeya khaladaad yaryar oo aan loo qabanayn baa jiraya oo la yidhaahdo waa ruuxii weysada meedhi jirtay sida ilaahay bay dunuubta qaar baa ninka tukada
markii uu weysaystay labadii salaad waxay uga lameeyeen dee sidaasoo kale ninkii shaqeeya ya kaasoo kale aniga oo kale iyo hadduu marmarii hurigu ku oolimaago iyo waa shaqada ka keentay baan leehay waa loo dhaafaya laakiin ninka aan looga dulqaadanayn saxriga oo anigana sidaa hadduuba ii soo eego aan leeyahay halkaa tukuntukunaya qoladaa u geynaya waa ninka shaqada freydka u qabta ee xakiya ee jactadiya ee amarka diida wax walba kaa waa loo fiirsanayaao dhagaxaasoo jira baan odhanaynaa wax kale isku daawi dhagaxaas wuu jira waa ninkii shaqada dee adadkeeya annana waanu ku adadkaynayna ninkii shaqada fududeeyana ilaahayna hala fududeeyo annaguna waanu la fududaynayna waa anigaa leh bini aadamku waxyaaba fara badan baa ka khaldami karo oo u tixgelin mayno wax badan oo ka khaldamay ammaan baanu ku siinay waxaan odhanaynaa dhagax baan khaldamay dhagaxa halkaa yaalla baan khaldamin iyo ninka aan waxba qabanayn ninkani shaqadiiba ku fuddan waa laydinku abaalmarinaya shaqadan aan idin leenahay qabta waa laydinku qiimaynaya haddeerna qiimayntiinni sidii maalintiiga weedaan sheegayey mid lumaysa maa wayadu waa gudbisan tahay oo qoraal bay ku gudbisan tahay oo warbixinteedana ku gudbisan tahay oo waa laydin tusayaa nin walba waa anigaa haddana sikiin soo ururiyo oo idin yidhi waar maantana hadda xaashid cusub baa laga bilaabaya waa inay dhacdaa mid maalintii hore ku gudbay ammaan wanaagsan doorkan waa inuu xumaan karaa laakiin mid markii hore maba shaqeeyo ku gudbayna waa inuu doorkan isagaaba meesha u horreeya waa in wax isbedbedelaan naftayda iyo idinkaba sidaasaan soo dardaarmayaa anigu iminka waxaan idin idhi kolkaa wax kale uma sito aan tustaa shaqada iyo shaqaalaha iyo nimankaas aan uga warbixiyo aniguna waxaan ka rabaa warbixinta oo marka hore idin soo maraya oo idinku aad ku soo celinaysaa oo shaqada uga warramaysaa mas-uuliyiintaas agaasimayaasha ee aad ka taqaanaan axmed suqays baarax ciise jaamac cabdi shire faadumo cabdulla xasan inaan isla soo noqon arrintaasi waa kedis iyo waa qaflad oo isniin sheegin shirkii anigu waxaan ku xidhayaa iminka intaas qoraxdii baa nagu kulaatay waynu si kale shaqo tegaynaa intii shaqo tegi jirtayna ha tagto oo hawsheedii ha wadato oo mas-uuliyiintu ha u qaybiso nin walba oo kale oo aan shaqo beryahan faraha ku hayna halkii shaqo ugu dambaysay iyo mas-uulkii ugu dambeeyey ee ula xidhiiri jiray hala xidhiidho maantana oo ilaa iyo inta dib laysugu habaynayo haddana oo shaqo loo abuurayo nin waliba halkii ka shaqayn jiray maanta laga bilaabo waxaa laga rabaa mas-uuliyiinta nin walba oo shaqaalahaasa inay wararkooda noo keeneen iyo siday usoo shaqeeyeen maantaas laga bilaabaya wiilkaa cusub ninkii aan liiskaa dee ka waayo oo waa xaguu kale ku maqan muu ahaa in la yidhaahdo hal intaas maxay soo qabteen ilaa 7 barkiiba halka yimaadeen oo dabatana bustahoodii hoosta ka galan shaqayn mayse intaas wixii ay soo qabteen waa layga doonaya anigu inaan sheego yaana weydi ka doonaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu badheer u soo jeediyey xoghayaha dowladda hoose ee kasraha haya hadda shaqaalihii oo shaqooyinkoodii waajibaadkoodii kala gudan doona bishii labaad waa qayb xisaabaadka loo diray xoghayaha loo xisaaray inay qaranka ay dowladda hoose iyo guraanka wax oo dhan ay soo dhammaystiraan oo ay soo eegaan meel walba soo jeegareeyaan iyadoo qaranka nooc walba loo tirin doono qolada dowlka ay maanta wax walba ay jeegaranayaan iyadoo loo wareejin doono maayarka cusub ee gobolka sanaag ismaaciil xasan nuur la jeegaraynayo oo lagu wareejinayo maayarka cusub sanaag ilaa maanta sameeyihii 7 bilood ee barhka xusismaadka oo uu ku wareejinayo xilka maayarka cusub isagoo booskiisii tiradiisii halkiisii kasii hayn doonaa xoghayaha xasan xasan hore ee lahayd dowladdii hoose ama xil wareejinta cusub ay gasho ee gasho qalabkan maayarka hore waxaa la tirin doono taas oo loo wareejin doono maayarka cusub ee gobolka sanaag iyadoo 5 xubnood soo
دي أول بس تحقق بقى شكرا اوكي بيس الله يطلع xafiiska xoghayaha iyadoo qodobada مالك فديك على كرسي فرتان بيك بس كنت هذا على طول شيء كمل يو فيزيتور تشير او انا يو فيزيتور تشير يو وان تشير sekatariyadda xoghayaha iyadoo xafiis loo jeegarayn doono oo aragtaan halkana meesha xafiiska khasnada sare ee dowladda hoose qalabka ilaa waxa weeye dadweyne misani sheegi sida keentay sida waa mid kani waa mid بيس الله إذا كبر كان كانت فاير كابون صلاح فيكتوري تريانا وحكاي كان خسر وشيفك اسمك ما كونتر كان عندك عصبيني يا كانت ترجع كونتر كان سيف كان كونتر تدارتكم كنت ايوه كل ما هاي نو بروبلم بيقولي لي بيا qorofo jarada xafiiska khasnada sare ee gobolka sanaag intaas oo dhan waa khasnajiga gobolka sanaag sare baan qaar xarig loo jeegarayn doono waa aragtaan waa shanta xubnood ee loo magacaabay in ay soo jeegarayaan qalabka dowladda hoose هذا شيء labada qalabada dowladda hoose ay hay'aduhu kala keeneen waa si ay ayaa keenay labada miis ee arkaysaan كان هو لارج سايز ولبدا جاءوا مش تحققوا كله وانا دين عمي دكتور كله تحققوا كله ويا كان حاجه سمول سايز او $3 فلودada ay ku fadhiyaan xasan ibraahim iyo $2 from peace and life. Not in service now. maaliyadda jaamacadda shire hoose taasoo xidhka loo wareejin doono maayarka cusub ee gobolka sanaag waaxda maaliyadda iyo maamulka gobolka sanaag labada miis ee arkaysaan waxaa keenay hay-adda Number one. Two desk. With $3 from the right side. From Hagawayan. Small cabinet with $3. Who is the guy? From this life. yahay agaasimaha waaxda dhulka ومحمد عوسي انجينير ياسين علي فرس مصطفى اوكي نمبر 1 شرفكي دولده هوس سميسي وكاكو سميسان idin muuqda iyo gaagidaka waxaan ugu nimi maha oo waxaan hantidayda dakhligayga kaybsanin aan cidna noogu deeqin miiska
hantidood buu ku jiraa maxamed jaamac cabdiye halkaa idinku qoran uu ka soo wareejiyey stateskii hore iyo waa soo wadaan kabadh iyo miis kabarkaa yar waa kuwii kee waa qalabada yaalla xafiisyada oo halkaa arki doontaan shaashada xafiis walba qalabka yaalla loogu talagalay inay cajalada gasho oo xafiiska uu leeyahay qaybta dhulka ay leedahay xafiiska qaarkiisa meel walba la jeegarayn doono mishiinka cusub ay leedahay xarunta dowladda hoose ee gobolka Sanaag waa mishiinkaas oo ay ugu deeqday hay'adda KEF waa aragtaan taageeradii oo iyaguna ku xariisan xafiiska stoorka 8.5 kVA سوى كان يسار يعني ماشي قلت شوية لا قلت مليون قلت كيف يلا كيسان اوكي انا اقول لكم بليز كتوش اوكي قلت هذه وقلت حسابات الدمله iyadoo xafiiska yahay xafiiska xisaabaadka degmada شفت أنا كان عذاب فريسته قلب كيالا ولا والله ميس سي كنت أغلي وصدوما مكملة ضبط كرسي أردنية نعم حميد نعم أوكي كنت أغلي هذا سي كنت أغلي كبر عليه والله بدي كبر كملها في أنا بصور إني سكرتيريده وحيا لما كرسي وأردن مثل سلسلة الله صدق عيالي صدق عيالي ما بوردنا فيها يدو سلسلة أمرت عيالي لما أردن ليس بشيء waa howlka weyn qaybta biyo gelinta gobolka Sanaag tuubooyinka waaweyn oo iyo bakhaarkii kale xaggan midda kale xabad idinku soo gudashay waxaan qoraal bay qaadayna hoose waa iskargooyin badan oo ka shaqeeya xarunta dowladda hoose iyo magaalada gobolka Sanaag Ceerigaabo iyadoo shaqaduna ay socoto meel walba loo nadaafadinayo magaalada iyo xafiisyada agagaaradooda oo dhan qalabkii ballaarinta ee gobolka Sanaag وتركني ويا المكان ما بوصل كلام باي ولا شيء كذا ويا اشتغلت كل يوم اخوان لو تاجنا واقف ولا صرت هو حنا ما قلب كوزي ولا لا فتك اسمه يوحنا هو طيب اسمه كده وبيا بالمشروع بيا بالعنيف gobolka Sanaag taasoo xarunta dowladda hoose ku xareysan taasoo loo xisaaray oo lagu wareejin doono maayarka cusub ee gobolka Sanaag sidoo soo shaysan guddiya kuwaasoo jeegaraynaya qalabadii oo kala wareegaya maamulka hore ee dowladda hoose qalabkaas waxay qalabkii ay tamadii biyaha ee biyo ballaarinta gobolka Sanaag taas oo ku xareysan guriga duqa magaalada taas oo xarunta xafiiskiisa ah oo qalabkii biyaha loogu talagalay inay magaalada biyo ballaarinta tuubooyinkii beeraha haddii wax tiri karo iyo wax hergelin karo midna maaha kuwii hore ayaa halkaa kabadha
وقبليه قيبتها بيها وأركان heshiis baan ku ninkaa ku jira ninkaan maanta waa lala wareegaya hadal kalimaad uga yaalo deegaanka waa kirsanaya sida dowladda jamhuuriyadda somalilan ay ka mid tahay guryahan aad arkaysaan u sheeg meeshan inay tahay meel dowladdu leedahay oo heshiis ay ku jirto waxaan ka gudaanka ahayd dowladda ay ku hayso taas oo loo wareejinayo golaha deegaanka shanta xubnood oo uu soo wakiishay gudoomiyaha degmada Ismaaciil Xaaji Nuur oo waaweyn oo dhinaca sijeedkana ay dowladdu ay gacanta ugu jirta jeeday waaraysa oo basharada dowladda hoose ee gobolka Sanaag jira dowladda laamihii shanta golaha ee uu soo wakiishay gudoomiyaha gobolka Ismaaciil gudoomiyaha degmada Ismaaciil Xaaji Nuur waa daabaqaadii kuwaas oo loo maanta kormeer ay ku marayaan shanta xubnood ee soo wakiishay gudoomiyaha degmada Ismaaciil Xaaji Nuur waxa isna maraya xogayaha dowladda hoose oo xil wareejinta iska wareejinaya intii uu hayay muddada 2 bilood iyo barka ahayd daabaqaada iyagoo ay kormeer ku marayaan inay ay meel walba ogaadaan si ay ugu wareejiyaan gudoomiyaha degmada oo guryaha dowladda iyadoo maanta xogayuu ku wareejinayo guryaha dowladda ee gacanta lagu hayo iyadoo shanta xubnood ee uu soo wakiishay gudoomiyaha golaha deegaanka Ismaaciil Xaaji Nuur ay kormeer ku marayaan jeekin wax walba ku sameeyaan oo shanta xubnood ee uu soo wakiishay gudoomiyaha golaha deegaanka uu kormeer ay ku marayaan guryaha dowladda gacanta ugu jira ayna kormeer ku sameynayaan oo dhaqso dib loo hagaajin doono guryihii dowladda awaan gacanta ugu jirin waxaa halkaa ka muuqda guriga weyn halkaa ka dhisan kaasoo ah guryihii meelihii ay lahayd dowladda oo halkaa lagu wada jiray ahayd waad aragtaan sida wax loola wareegay sarfeed lagu jiro oo la gurayo waa aragtaan iyo aad nadaafadeeda loo ilaalinayo hadda iyadoo waqtiyadii hore uu maanta xilka la wareegay gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka Ismaaciil Xaaji Nuur waa aragtaan sida shaqada u socoto iyo nadaafadda iyadoo goob walba iyo xarun walba xashiishka laga gurayo waa aragtaan iskarogooyinkii oo shaqaynaya u socoto iyadoo iskarogooyinku ay magaalada ka gurayaan nadaafad aad iyo aad loo nadaafadinayo waa aragtaan sida shaqada ay u socoto xashiishka lagu soo guray xashiishka ka gurayaan waa aragtaan isna xogayaha dowladda hoose Ismaaciil malaya sida shaqadu ay u socoto sarfee weyn oo magaalada lagu jiro oo ku kormeer ku marayo xogayaha dowladda hoose sida magaalada loo nadaafadinayo iyadoo xogayuhu kormeer ku marayo sida xashiishka loo gurayo waa aragtaan sida iyadoo magaalada loo nadaafadinayo magaalada loo nadaafsanayo waa saradadii waaweynaa ee magaalada waa aragtaan iyadoo saradadan ay yihiin saradadii waaweynaa ee magaalada sidaa shaqadu ay uga socoto oo loo nadaafsanayo maayarka cusub iyadoo xogayuu uu kormeer ku marayo meel walba shaqada ay marayso
qalabkii labada waxaa halkaa idinka muuqdaa waa 5 xubnood golaha deegaanka waa xasan ibraahim oo liiskii shaqaalaha saaka kusoo kalhay kaasoo si shaqaalaha loo hubiyo tiradoodana loo cayimo uu ku jiro ibraahim oo saaka liiskii jeegaraynaya shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka Sanaag waa 5 xubnood ayuu ka mid yahay وين حرنا قلبي مهداكم وعن عرض الاستاذ بوكسوري شغاله بكره كوكاها واحد دمانكا لبعض 5 xubnood ayuu ka mid yahay waa Axmed Maxamed Ali waaragtaan waa xubnaha golaha deegaanka oo saaka jeedareynay shaqaalaha dowladda hoose inta ka tagtay shaqada iyo inta kale fadhiya waa agaasimaha laanta maaliyadda iyo maamulka gobolka Sanaag jaamacad Cabdishire ورجيني شركة ما أنت رأيه وحلك شقالة ورجيني واركتان ما أنت وحاقا كم قضايا حلك شقالة هلا ورجيني وضغط شيء قرينيو قعنت له هيو kormeerka ay shantii xubnood ee golaha deegaanka ee gobolka Sanaag iyo xoghayahu ay weheliyaan iyaga oo xafiisyadii loogu talagalay ama istooradii loogu talagalay qaybta biyaha oo jeegaraynaya taasoo loo wareejinay maamulaha cusub ee maayarka cusub ee gobolka Sanaag watarka waxaa malaya 5 xubnood ee golaha deegaanka ee gobolka Sanaag halka xabad oo hal tirade ana hayne okay ana ka masuula okay dawladda soo dambeeyay ninka kala xisaabtan ma kuwii markii la dejinayay isla ogeeyay aniga oo kale bas golaha deegaanka okay baa la wareegay taas oo lagu wareejinay maayarka cusub ee gobolka Sanaag waxaana xilka loo saaray Cabdi Xaajiige ministarka waa 5 xubnood ee golaha deegaanka kuwaas oo xilka Sanaag u wada oo eegaya meelihii dawladdu lahayd iyo qalabadii ay dawladdu lahayd biyaha oo aragtaan waa bakhaarradii loogu talagalay inay qalabka yaalaan kuwaas oo 5 xubnood ee golaha deegaanka lagu ay eegayaan nololka qalabka iyadoo xil wareejin ka dhacday oo maamulka hore ee maayarkii hore xilka laga wareejiyay waa aragtaan waa shaqaalihii waa 5 xubnood ee golaha deegaanka oo eegaya qalabkii dawladda iyo wixii hantida muguraanka ah ee dawladdu ay leedahay waa qalabkii biyo balaarinta ee gobolka Sanaag waxaa isna kormeer ku maraya xoghayaha dawladda hoose xasan xayir